بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. habeen wanaagsan caawa sida aad garanaysaan qoladiina meediyada ama warbaahinta reer Puntland oo reer Soomaaliya intaba ka jooga halka waxa weeye 12 saac markay dhacdo waxa ka buuxa waqtigii 4 sano oo la doortay madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya mudane حسن شيخ محمود بيكا بوحد عاو 12 arrintaas waxaan maqli jiray Soomaaliya oo tiraahdo ceelna uma qodna cidna uma maqna waxay ahayd biri subax ama caawaba in la dhaariyo madaxweyne cusub ay ahayd madaxweyne xasan sheekh 4 sano xafiiska joogay waxa loo dhibay dastuur waxa loo dhibay dawlad ku meel gaarkii laga saaray taariikhda laga saaray wad garanaysaan 2012 baa laga saaray markii gorowtu lagu gudoomiyay halakan in nidaamka federaalka la qaato aqalka hoose sanadkaas lagu sameeyo 4.5 kii laga fujimay dadka qaarkii aqalka sarena oo noqdo 18 gobol oo ay ka kooban tahay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliya oo Maxamed Siyaad Allah u naxariiste markuu xafiiska ka tagay wadanku ka koobna doorashadaas si ay ku dhacdayba aqalkii sare iyadoo oo dastuurka ku qoran yahay inuu wax ka doorto madaxweynaha ayaa xasan waxa doortay aqalkii hoose dastuurkiina waxba laga qalday madaxweynuhu ku noqday qaladkii doorashadiisa ku yimi baa weli Soomaaliya la socda 4 sano ka bacdi oo la doonay dastuurka dib loogu noqdo dowlad goboleedyadii Soomaaliya ka koobnaan lahayd la dhameystiro la dhiso waxay ku dhamaatay habaan mansuura meel cidlaabay ku dhamaatay caawa oo ay tahay bisha September 10 ayay kaga buuxdaa 12 caawa madaxweyne xasan sheekh وينو حفيز كبنيا برسوا حلك كوريجيا رئيس البرلمان وينو كوريجيا سيدا دستور كقبه كميل جاركا قضب كيس سجاشن هي كو أفرت سنة كبحده قوار كسجاشن هي شن أو شيء جاي إن حلك كوريجيا يمرك حفيز كبنيا رئيس البرلمان إنه كوريجيناي أما رئيس البرلمان كله كسي حاجة أما كان كله كسي حاجة هدوك عدد دارته رئيس البرلمان كسبيكر أوف ذا هاوس وصوب مدرسة كمل هدوك عدد دارته وينay ku wareegtaa hogaanka baarlamaanka wayna ku wareegtaa sidaan ka warhayno sagaalkii bisha 8aad madasha oo ka kooban saddexda xafiis oo dowladda federaalka oo dhaxaysa baarlamaanka madaxweynaha iyo prime ministerka oo executive-ka iyo maamuladii dowladda federaalka xubinta ka ah oo xamar isugu tagay waxay soo saareen warmurtiyeed doorashadu say u dhacay soo qeexaysa iyo muddo kororsi loo sameeyay nimanka xilka haya xafiiska haya madaxweynaha iyo prime ministerka ilaa 30 October taasoo sharci darro ah aan sharci waafaqsanayn baarlamaanka aan la geyn madashu waa maamuladii dalka koobnaa ama haadan ku dowladda dhexe ama magaciisii laakiin baarlamaanka legislative ahaa wixii sharci baarlamaan la geeyay waxay ka shaqeyn kareen farsamo ahaan sida doorasho lagu dhigi karaa sida muxuu ahaay wax loo maareyn karaa sida kharash loo bixin karaa xagee la isugu diray oo idman yihiin taa laakiin sharci ma sameyn karaan dastuurkana meel ka wadci kama bedeli karaan dastuurka ku meel gaarka oo dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu qeexayaa artikalayaas aan inii sheegay sidaas maalinta xilku ka buuxo hadaan madaxweyne sharci imaan inuu xilku ku wareegayo gudoonka baarlamaanka inuu ku wareegayo baarlamaanka lama kala dirin waa jooga si sharciga waafaqsan bay waxay yiraahdeen annaga baarlamaanka la bedeli kara power vacuum ma ogolin annaga wali sharciya hadii aan baarlamaan la soo dooran inta annaga mandatekiya ka hadhay oo ahayd 20 bishan hadda la soo dhaafo August haduusan baarlamaanka imaan annaga jooga inta baarlamaanka la yiraahdo marka iyaga wali sharci ah taas anagu aaminsannahay
haddaanu nahay shacabkii, haddaanu nahay mucaaradkii, haddaanu nahay kandideedyada u tartamaya madaxnimada iyo hoggaanka dalka Soomaaliya, aniga iyo ragga kale qaarna maanta xamar ka hadlaayay horena ishu soo saaray. madasha go'aankeedaas maalintaa waxaan ka soo qoray saa ka warhaysaan meediyadana galay qoraallo baan ka soo saaray magaalada Garoowe bishii 18keedii baan ka soo saaray laba madaxweyne u tartamayaal baan halka ku ahayn maalin ka bacdi 12 August wala Coalition for Change anaguna aan ka midnahay Coalition Change waa ambareelada guud baayana soo saaray qoraalkaas ay go'aankaas 9 August lagu kordhinayay xilka xafiis hayayaashii political opposition party nimanka la baxay iyaguna xamar jooga oo Coalition for Change ka mid iyaguna 13 bay qoraal soo saareen ka bacdi 19 mid loo dhan yahay baan soo saaray oo aan u qoray qaramada midoobay golaheeda ammaanka iyo beesha caalamka guud ahaan waan ku wargelinayno sharci darrada ka jirta halka iyo in sharciga loo soo noqdo intaasoo dhan macluumaadka ka bacdi maanta waxa ka hadlay iyaguna xamar yimi qoladii axsaabta xamar joogtay iyo qoladii Nairobi joogtay isku soo darsameen waxay isugu yimaadeen xamar waxay soo saareen oo sheegeen in Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xilka caaw kaga buuxo subaxii waxa loogu yeerayaa haddii waagu beriyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale madaxweynihii hore dowladda Puntland oo federaalka ka mid ah saas loogu yeeray isku title baan noqonaynaa nasiibkiis doorashadii dadbanayd oo ay ku dhawaaqeen bisha 9keedii wax talaabo ah oo wali hore loo qaaday ma jiro 9 August imsa laga jooga bil iyo maalin baa laga jooga wax talaabo ah oo shaqo ah oo socota ma jirto anagu ma arkayn doorasho dadban waxaan u arkaynaa kororsimo dadban oo xafiiska lagu sii joogo waana muuqataa hadeer xamar hadda waa la joogay maanta delegationkii Puntland madaxweynihii Puntland hogaaminayay marbay soo kici gaareen dabadeedna waxa la yiri bal waa loo yeerayo dib baa loo ceshay waxa hadda ka soo baxayna weli looma sheegin waa arki doonaa dalka crisis buu ku jiraa constitutional crisis laakiin dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed taawal bas 26 sano dawladana waa joogeen maamulana waa u dhisan yihiin inta ay dawlad lagu kalsoon yahay doorasho imaanayso doorasho kororsimo dadban aqbali mayno xilka ninka ha banayo ha u dhiibo guddoonka baarlamaanka ha u dhiibo anaga tashanayna beesha caalamkana waxyaalaha qaarkood oo faraha gelisay oo hadeer wax badan qaldameen ha joojiso oo ah 4.5 oo dastuurka lagu jebiyay iyo heshiisyadii ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay 18 February 2012 hanaga joojiso waxayna tarayaan waa uga baahannahay laakiin siyaasiyiin ama diblomaasiyiin iyagu xafiisyada ka yimaadeen u danaynaya iyo iyaga xafiiskooda iyo kariirkooda oo anaga boog intay noo dhayaan hadhow meel cilaan nooga tagaya waxba danteena ma hayaan Soomaaliyada danteeda isu og waxba kala gaari mayaan way tashan kadha 4 sano oo khasaare ah 4 sano oo NGOism-ka ah aan dawlad iyo institution hay'adaha midna xoog la saarin 4 sano oo biliq ah oo hantidii ma guurtada ahayd oo dawladda Soomaaliyeed oo ay ka dhaxashay isticmaalkii ilaa dawladii iska dameeyay ilaa tii maxamed si ugu dameysay la xaraashay intii badnayd la xaraashay oo caawa wax sharci oo loo maray soo baarlamaanka joogo baarlamaankii oo laga talaabsaday oo functionkiisa oo dhan la tuuray iyagoo wax khilaaf ka jirin ka bacdi markii ay madaxweynaha ku eedeeyeen khiyaano qaran oo la dhaxgalay gacan ka hadal iyo faragelin iyo kala dulaal iyo malaal la dhaxgalay haddana wax u dhismi waayeen nidaam qabaliya aan horay uga afeefanay oo aan wax badan ka hadlay inuu dad kala qaybiyo ma isu keenaya ma jirto nidaam qabaliya waa kii 13 leegada hadda ani xafiiskay ku dhagan ay ka tanasuleen oo Soomaali ka dhaadhiciyeen oo dawladnimada lagu gaaray dib u noqosho wax hadda laga bixi waay waxa leeyahay aqalka sare reer baa inta helaya kuwa kale inta helaya wareede adduunka waxa lagu dhaqmaa qaynuun
sharci islaamiya oo sunnaha iyo quraanka waxa ku yaala la raaco ama xeer dadku degsado oo aan khilaafsanayn iyaga anagu xeer baan qoranay xeer baan degsanayn xeer dawladnimo hal lagu dhaqmo wuxuu sheegayaa qodobka 72 ee dastuurka federaalka ku meel gaarka xildhibaanada aqalka sare oo lagama maarmaanka waa 54 aqalkaas waxa la yiraahdaa the House of the Federation of Galad waa aqalkii baarlamaanka dawladaha ka mid ah xubinta ka dawladda dhexe waa aqalka ilaalinaya ee xuquuqdooda ilaalinaya 54 18 gobol baan ku salayn waagi halkan lagu shiraayay oo hoggaanka la gaaray madaxweynihii ku meel gaarka ah oo dawladda federaalka Soomaaliya waqtigaas Shariif Sheekh Axmed guriga hadda caaw shirka jaraa'id ku qabtay buu deganaa gurigaana ra'iisul wasaaraha deganaa guriga halkaana oo kalena waxa deganaa ra'iisul baarlamaanka saasa loogu heshiiyay 18 gobol 18 isteedna waa noqon karaa hadii lagu heshiiyo 18 gobol marka la yiraahdo Muqdisho baa ku jidha laakiin hadii la yiraahdo 18 gobol 18 isteed hadii la yiraahdo 8 isteed ama 6 isteed inta isteedyadu yihiin Muqdisho markaa kuma jirto loo isteed maaha waa sababta aan dastuurka loogu qoray hal qeexo maqaamka caasimadda wadamada federaalka sida Australia kale Canberra America Washington Ottawa Canada anigu aan aqaano nidaam dhismoodkooda dawliga caasimadaha territory baa la yiraahdaa mayor baa xukuma nidaamka federaalka kama mid noqda laakiin dawladaha ugu yar oo federaal ka mid ah xildhibaanada aqalka sare isku in bay leeyihiin waa ku qoran tahay dastuurka madashu waxay ahayd labada mid ay qaadato oo ay dadka ugu faataxayso shaqadan la bilaabo reer baa inta dheer reer baa inta laga dhigo kana lagu daro inflation aan joogsanayn inflation lacageed baanu la ciirsanayn inflation qabiil oo baanu saguna awal ka soo kabanayno ka soo soconay inflation madax iyagu qabiil isu diriraayo isu haysanayaan nama matlaan noomana maqna mana naga wakiilaha laakiin nasiib waxaan ku leenahay biriba Carafa ummadda Soomaaliyeed halkaan waa wada gaaraya kuwa Carafa taagan hay soo duceeyeen kuwa Soomaya biri oo Carafa ha duceysteen aawa hal la duceysto in Ilaahay naga hor dhaqaajiyo kuwa hadda meesha jooga oo Xasan Sheekh naga hor dhaqaajiyo iyo kuwa rabaa inay xafiiska wali madaxtooye dib ugu soo noqdaan iyagoo isticmaalaya hanti dawladeed iyo awoodda dawladda iyo amnigii iyo ciidankii iyo wax walba iyo influence-gii mid walba isticmaalaya inay Soomaali u dhiibo cid ka naxaysa oo waxa ay u baahan yihiin fulin karta oo Ilaahay la kaashata oo nabadgelyo ku soo waarta oo dadka dib heshiisiin u samaysta oo kuwa xataa wax qaxinay wax dilaayo albaab u furta laga soo noqdo oo rajo gelisa in dadkooda dib uga noqon karaan oo aamini karaan hadii kale inta cid ciil qabto waligood kan ciil qabaayaga ku biiraya dhibaataduna waa sii soconaysaa ummadina waa dhamaatay maanta waxa arkayay qolooyinkii xamar joogay oo kamid ahaa coalition for change ka ururkayaga qaybta xamar isugu timi oo wadooyinka xamar kaligood lugaynaya iyagu waa liibaaneenoo hotel bay ku xiraayeen oo exercise bay heleen ba kaligood soconay maanta waa lugaynaya laakiin waxa la yiri gaadiidkii baa loo diiday wadooyinka maray gaadiidku dhawaa maray maalmii ciidda lagu jira haweenkii caruurta wax u soo gadan lahaa waalidkii odagii shaqo tagi lahaa dadkii isu laalaaban lahaa suuqyadii dadka ganacsiga ahaa badeecada keenay qofkii jiraan isbitaal la geyn lahaa meel la maro male waxa la magaalooyinka waa la xiro mise xiraan magaalada waxay tahay hadii magaalada saa loo xiray hadii maxaa shirka loogu qabanaya hadii ba saas tahay ma joogtaa qiimaha ma ku kacaysa ma joogtaa in dadkii Soomaaliyeed lagu ciqaabo magaalada xamar sida loogu ciqaabo in shir igad lagu qabto ma meel kale lagu qabto dawlad goboleedyada mid lagu qabto oo mid kale lagu qabto waxaan u maleeyahay magaalahan waxa ugu yar cadaadaha lagu qabto amaankeeda waa la sugi karaa wadooyina la xiri maayo ha lagu qabto hadii kale garow ha la keen hadii kale Kismaayo ha la keen hadii kale Baydhabo aeroboortka madaxweynuhu joogaa waliga aeroboortka Baydhabo ha lagu qabto hadii kale xalanaha lagu qabto dadka diyaarad bay ka soo degayaan dadka yaan la cadaabin marka cuqubadaas dadka loo geystay oo imaamihii Ilaahay barakeeyay kamid ah waxa moodeen meel yar ku dhacayaan waxaas waa soo baxaya waana ku dhacayaan wixii digeysatay annaga Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu san soo gaarsiin intii waxa geysatay kaliya ku koobo marka waxaan caawa u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogeene tan waa galbatay midda soo socota ka fikira waxaana asaas u ah xildhibaanada aad soo dooranaysaan cid inay masli ka dhahaato
oo masiirka Soomaaliya ka saari karna oo kuwii markii 60kii xorriyadda la qaadanayay baarlamaankii ku jiray oo kale hal isaga jiro ha ahaadeen dad maartay looga gamci karo masiirkiina uga gamci karaan uga seexan karaan oo inay masri kara oo inay dooran kara cid inay masri kara inay xuli kara doorta maanta jaanisaysan waa odayaasha haddii kale sida arki jiray oday walba inta lala hadlo hebel ii soo saar ama qabiil buntiris ah intuu galo mid aan waxaanaba loo dirsan karin inuu soo xirayo hageeyeen meesha idinkaana in ku soo noqonaysa marka ciru dameed xumadu idinka iyo caruurtiina iyo mustaqbalkiina Soomaaliya waxay noqon doontaa ilaahay naguma keene mid loo haro waxaan maqli jiray Soomaaliya ku ducaysada ilaaha noo harin ilaahu Soomaali nasr u soo ilaahu dhibaatada ka saar ilaahu fariqayba u fur ilaahu maalmihii barakaysnaa baan ku jiraaye naga aqbal ilaahu wixaan dib mooyee aan faa'iido noo hayn naga horleex amiin ilaahu naga horleex leeyahay sharaxayaan waxay qabteen ma jiri 4 sano waana mahadsantii